السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. guud ahaanba uurku jirta iyo qaybaha ay ka kooban tahay sida micdhirada iyo waxa la midka ahi waxay muhiim u yihiin jirka bini'aadamka marka la eego shaqada iyo hawsha ay qabtaan. waxa haddaba muhiima inaad ugu yaraan sanadkii hal mar maydho ama aad nadiifiso qaybaha ay ka kooban tahay uurku jirtaadu. waxaana jira waxyaabo dabiici ah oo si aanad adigu dareemayn u soo nadiifinaya uurku jirtaada iyo qaybaha ay ka kooban tahay, gaar ahaan micdhirada. waxyaabaha ku nadiifinaya guud ahaan uurku jirtana waxa ka mid ah saddexdan shay ee soo socda oo qaabkan loo isticmaalayo. midda koobaad ayaa ah sharaabka laga sameeyo midhaha tufaaxa. sharaabka laga sameeyo midhaha tufaaxa waxaa lagu tiriyaa waxyaabaha dabiiciga ee si cajiiba u soo nadiifiya guud ahaanba uurku jirta, suntana ka saara beerka ilaa xadna wanaajiya caafimaad qabka dheefshiidka. haddaba subaxii markaad hurdada ka toosto, cab koob sharaaba oo laga miiray midhaha tufaaxa, kadibna sug oo wax kala ha cunin waqti ku siman saacad barhkeed ama 30 daqiiqo. kadibna saacad barhkeed waxaad cabaysaa biyo cad inta aad cabi karta ee ugu badan. haddana waxaad sugaysaa 30 daqiiqo oo kale oo aanad waxba cunaynin. 30 daqiiqeed dambe marka ay dhammaadaan ayaad cunaysaa wixii kale aad u baahan tahay. waxaanad sidaas samaynaysaa 3 maalmood oo xidhiidha. arrinta labaad ee aad ku nadiifin karta uurku jirtaada ayaa ah in koob biyo diirana aad ku darto wax yar oo ka mida jirridda geedka sinjibiisha oo la shiiday ama la ridqay, kadibna aad ku darto hal qaado oo malab saafi ah. kadibna waxaad cabaysaa subaxda hore adoon waxba cunin. kadibna waxaad sugaysaa oo aanad waxba cunaynin 30 daqiiqo. 30 daqiiqo kadibna waxaad ka daba cabaysaa biyo badan inta aad awoodo. kadib markaad biyaha cabtana waxaad sugaysaa oo aanad waxba cunaynin 30 daqiiqo oo kale. waxaanad samaynaysaa arrintan hal maalin oo keliya, gelinka hore iyo gelinka dambe. arrinta saddexaad ee uurku jirtaada aad ku nadiifin karta ayaa ah in koob biyo diirana aad ku darto ama aad ku tuujiso waxoogaa leen dhanaana, kadibna aad ku sii darto hal qaado oo malab saafi ah. kadibna aad cabto subaxda hore adoon waxba cunin. waxaanad wadaysaa arrintan saddexaad 7 cisho oo xidhiidha. waxaan rajaynayaa inaad fahamteen. isla dhinaca kalena, quruuruxa ama dhagxaanta ku samaysanta xameetida ayay dad badani dhibaato ku qabaan. dadka qaarkoodna waxay arrintani haysataa waqti aad u dheer. haddaba waxaa jira qaab la tijaabiyey oo si fudud dhagxaanta ama quruuruxa loogaga saari kara xameetida. waxaanu yahay qaabkaasi sidan soo socota. qofka arrintani ay haysato ayaa 5 maalmood oo xidhiidha gelinka hore wuxuu cabayaa 4 koob oo ah sharaabka laga miiray midhaha tufaaxa. waxaanu cabayaa 5 maalmoodba xilliga gelinka hore. marka la gaadho maalinta 6aad ayuu xilliga 9 habeenimo wuxuu cabayaa 1 koob oo ah biyo diiran. haddana isla habeenkaas marka la gaadho 10 habeenimo ayuu cabayaa 1 koob oo ah sharaabka laga miiray liindhanaanta. maalinta xigta ee 7aad marka la gaadho xilliga subaxda hore ee hurdada laga kaco ayuu cabayaa 1 koob oo biyo diirana. waxaanu wadayaa 3 maalmood oo xidhiidha. isla maalinta 7aad marka la gaadho gelinka dambe ayuu cabayaa biyo caadiya ugu yaraan 4 koob. waxaana la rajaynayaa inay sidaa kaga baxaan quruuruxa ama dhagxaanta gasha xameetidu.